daawadayaal kusoo dhawaada saxafi filim su'aal aad ka dhahtaan barnaamijyada aynu kaga hadalno aksarada ka howlgala shirkadaha kala duwan ee dalkaasi Hindiya filimada ka soo saara. Mar labaad ayaanu idin leenahay Ramadaan Mubaarak, waxaynu bartanka kaga jirnaa bishii barakeysneed ee Ramadaan amaba Soonqaad. Daawadayaal barnaamijkan waxa aynu kaga hadli doonaa aksara badan oo u dhashay dalkaasi Hindiya ayaa waxa ay ka mid yihiin aktara muslimiin haysta diinta Islaamka. Haddaba diinta Islaamka aktaradaasi haysta waxaa ka mid ah aktarada caanka sida Shah Rukh Khan, waxaa ka mid ah Salman Khan, waxaa ka mid ah Aamir Khan. Saddexdan ilmo Khan waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad muslimiin ah, balse qaarkood ay markay noqoto ku dhaqanka diinta Islaamka ay ku kala wanaagsan yihiin. Haddaba aktarka ugu horeeya markii ay noqoto ku dhaqanka diinta Islaamka kaalinta koowaad ka galay saddexdan ilmo Khan waa jilaaga caanka Aamir Khan oo sanadku markuu ahaa 2013 filimkiisa Doom 3 markii uu sameynayay ka hor xajka tagay isaga iyo hooyadiis oo markii ay soo xajiyeen kadib ayuu dhameystiray filimkaasi Doom 3 waana filimada guulaha badan u horseeday. waxaana uu sheegay Aamir Khan laftiisa in markii hooyadiis riyadii ay muddaba ku riyoonaysay uu u kaamilay oo ahayd inay mar un xajka cagaha geyso ducadii ay u ducaysay aawadeed uu filimkaasi Doom 3 uu guulaha badan uu ku keenay. Haddaba aktarkan ayaa bisha barakeysan ee Ramadaan su'aalo badan laga weydiiyay, waxaana ka mid ah su'aalahaasi la weydiiyay jilaagan caanka waa Aamir Khan. Aamir Khan waxaad haysataa baa la yidhi diinta Islaamkana waxa ay dhigaysaa in 12 saacadood iyo ka badan oo xiriira wadamada qaarkood uu qofka bini'aadanka ah gaajo ku sugnaado. Haddaba diinta marka aad fiirisid aad haysatid miyaysan kula ahayn taasi cadaadis qofka bini'aadanka nafsadiisa wuxuusan xamili karin la saarayo? Su'aasha labaad ee la weydiiyayna waxay ahayd jilaagan caanka Aamir Khan. Haddaba midda kale soo hartay waxay tahay bishan Ramadaan waxaad tiraahdeen waa bil cibaado, waa bil qofka bini'aadanka uu soomayo. Saasay tahayna waxaad qashaan baa la yidhi xoolo badan oo naf xayawaanka ayaad nafta ka qaadaan oo ka jirtaan, taasina lafteedana tacaddi dhanka xuquuqda xayawaanaadka miyaysan ahayn? oo su'aalahan waxaa weydiinaya dadka hunuuda amaba dadka haysta diinta Hinduuga oo aanan badankoodba isticmaalin waxa loo yaqaan hilibka oo u badan vegetarian amaba inay cunaan khudradda. Haddaba jilaagan ayaa waxa uu kaga jawaabay shakhsi waliba diin ayuu haystaa, waxaa suurtagal ah buu yidhi shakhsiga saa yiri amaba hadalkaasi aaminsan in diinta asaga uu haysto ay la saxan tahay oo uu aaminsan yahay inay tahay diinta kaliya ee dunida ugu saxan. Waxyaabo badan oo qaldanna waa suurtagal in ninkaasi diimaha uu haysta ay ka qaldan yihiin oo markii aniga ahaan la i weydiiyay amaba aan arko ay ila noqoto waxyaabahaasi wax aad iyo aad u qaldan oo markii dhan walba laga fiiriyo aan wax faa'iido ugu jirin. Teeda kale buu yiri qofka muslimka ah 12 saacadood oo uu qatan yahay wax ay ka dhibaysa haba yaraatee ma jirto, wuxuuna ma aha buu yiri wax joogta waa bil 11 bilood oo aad wax soo cuntay, hal bil oo aad adigu maalintii kaliya aad qatan tahay oo aan ahayn buu yiri 24 saacadood qofka wax ay ka dhimayso ma jirto. Markii laga eego buu yiri dhanka caafimaad ahaan taqaatiir badan ayaa waxay aaminsan yihiin in bishan ay tahay bil ay muslimiinta ku qaataan dhanka practicada amaba qofkii u baahan markaasi in uu sameeyo miisaan dhimis amaba qofka ay xeerta ku badato bishan waa uu isku caateyn karaa buu yiri oo caafimaadka in ay gaajada u roon tahay waa wax la isku raacsan yahay. Waxa uu yiri diinteena wax inaga inoo wanaagsan ma ahane wax anaga xumaan inoo keeni kara dhan caafimaad iyo dhan bulsho ahaanba marnaba rabbi naguma uu amrin buu yiri waajibna noogama dhigayo. Taas ayaan kaga harayaa buu yiri midaas. Ta kale soo hartay buu yiri qaliinka iyo waxyaabahan kale ee aad ka tabanaysaan buu yiri amaba fikir ahaan dhanka diintiina marka loo fiiriyo aad ka aaminsantihiin inay qalad yihiin. Waxa uu yiri waa suurtagal in xayawaankan aad arkayso waxa uu ka mid yahay buu yiri nimcooleyda Ilaahay anaga uu noogu nimceeyay looguna talagalay buu yiri in dadka aadamaha ee koonkan korkiisa ku nool ay ku nimcaystaan. Qalitaankana ma aha buu yiri wax joogta oo maalaa yacni loo qalayo xayawaanka ujeed ayaa loo qalayaa buu yiri cunadaas markii hilibkiisa la qalana waa la isticmaalayaa oo baahi ayaa loo cunayaa ee ma ahan buu yiri inta la qalay meel cidla la isaga tuuray. Ayaan taasna kaga haray. Jilaagan caanka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay aktarada u istaaga marka ay noqoto dhanka Islaamka amaba diinta Islaamka wax laga sheego si kululna jawaab uga bixiya. Haddaba daawadayaal aktarkan ayaa waxa ay ahayd su'aalo laga weydiiyay bishan barakeysan ee Ramadaanka inta aynu ku jirnay oo saxaafadda dalkaasi Hindiya qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala ay weydiiyeen. daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay aktarka caanka ee Aamir Khan iyo bisha barakeysan ee Ramadaan su'aalihii laga weydiiyay. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaya halka aad ka daawanayseen waa saxafi filim su'aalaha diyaar idin la sheekooyinka iyo dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee arrimaha Bollywoodka in aad ka daawataan amaba ka dheehataan
haddaba haddii aadan ka mid ahayn baada ku xiran saxafi films fadlanba ugu horeyn waxaad isku dadaa in barnaamijkan aad daawanayso aad like saarto kadibna aad subscribe ku qabato saxafi films ugu dambeynna gambalelka taabasi barnaamijyada ka baxa saxafi films iyaga oo joogta ay kugu soo dhacaan fikirka aad qabtidna waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta commentiska ee afkaartiina loogu talagalay ee saxafi films inagoo isku duuban oo abaada saxafina waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaanteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu